Muuqaalkeenan waxaynu ku baran doonaa sida ugu fudud ee aad u samaysan karto Facebook account. Ugu horreyn, haddii aad isticmaalayso mobile Android ama Samsung ah, waxa aad soo gelaysaa application-ka Facebook. Markaad application-ka Facebook saas u soo gasho, waxaad tegi doontaa halka ugu hooseysa ay ku qoran tahay Create New Account. Kadibna waxaad oran doontaa Get Started. Halkan waxaad gelin doontaa magacaaga rasmiga ah. Waxaad oran doontaa Next. Kadibna halkan waxaad gelin doontaa waqtigaad dhalatay ama taariikhda dhalashada. Kadibna Next ayaad oran doontaa. Halkan waxaad ka dooran doontaa female ama male, lab iyo dhadig, kolba ka aad tahay. Kadibna waxaad oran doontaa Next. Halkan marka aad joogto, laba option ayaad haysataa. Option-ka koowaad, nambarkaaga inaad ku xidho iyo in aad email aad ku samaysato. Waxaynu dooran doonaa inaynu ku samaysano email. Marka aad email-kaaga halkaa geliso, waxaad oran doontaa Next. Kadibna waxa aad samayn doontaa password adag oo strong ah oo aanad iloobi doonin. Marka aad password-ka geliso, waxaad oran doontaa Next. Halkan wuxuu ku weydiinayaa xogta inuu save gareeyo. Kadibna waxaad oran doontaa Save. Kadibna waxaad oran doontaa Agree. Daawadayaal, sida aad arkaysaan haddeer waxay noo samaysan Facebook account aynu samaynay, oo waxaynu ku darsan karnaa sidaad aragtaan asxaabtii iyo page-kii iyo wixii kale xog aynu u baahannahay ayaynu ku qabsan karnaa. Sidoo kale asxaabteena aynu kala xiriiri karnaa oo aynu kala sheekaysan karnaa. Ugu dambeyn, iyadoo la joogo 2024, cidna ha ka baryin in lagu sameeyo Facebook account. Saas darteed, haddii aad muuqaalkan ku caawiyay ama aad ka heshay, fadlan noo share garee. Sidoo kale like iyo follow iyo wixii kale aad uga caawin karayso nagu caawi. Muuqaalka xiga waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loo sameeyo Facebook page.